dagaalka ka socda waddanka Ukraine iyo duulaanka Ruushka ee dalkaasi ee haatan bilaha socda dabcan sidaan la wada socono waxaan ognahay inay reer galbeedku siinayaan taageero buuxda oo dhinaca saada militariga iyo hubka waddanka Ukraine ay ku daabulayaan haddaba dagaalka ka hor maxaa dhacay maxaase gundhig u ahaa in uu dagaal bilaabmo dabcan sidaan la wada soconay waddanka Ukraine wuxuu isku dayay inuu ku biiro NATO ama reer galbeedka la safto taasna waa cadhada ka dhalatay in dagaal dalkaasi uu galo wadamada reer galbeedku si ay u jabiyaan quwadda Ruushka oo ay markaasi u wiiqaan waxay adeegsadeen dal aan waxba ka gelin hadda waxay leeyihiin dadka reer Ukraine waxay u dhimanayaan Yurub xaqiiqadu waa sidaas waxay u dhimanayaan qaaradda Yurub sidaas ay doonayaan inay u dhintaan ay doonayaan qaaradda Yurub balse nasiib darro dadka Ukrainiyaanka ah ma fahansana iyaga waxay dantu ugu jirto waxayna taas keentay inay malaayiin Ukrainian ay maanta qaxaan oo ay dalkoodii ka qaxaan dabcan waxdan oo ugu jirta in ay NATO ku biiraan ma jirto sidoo kalena Ruushka xuduud ay la wadaagaan in ay dhaxdhaxaad wax walba oo socdo ka noqdaanna way awoodi lahaayeen laakiin nasiib darro waxay u jajeersameen dhinaca reer galbeedka taasna waxay keentay in uu Ruushku gebihaanba uu hub iyo markaasi uu ka dhiga dalkaasi meel diqaantiqa ah oo dambas oo kala ah magaalooyin badan oo Ukraineana dhulka lala simo haddaba xaqiiqada waa in reer galbeedku ka shaqeeyeen qorshaha dagaalka ee uu Putin qaaday xaqiiqadu waa sidaas sababta ay uga shaqeynayeen waa inay wiiqaan awoodda Ruushka maadaama hadda dagaalkii qabowga una dagaal dhicin sidoo kalena quwadda istaraysay tiknoolajiyadu istaraysay qalabku istarayay si loo wiiqo dhaqaalahaan iyo awood ahaanba waxay ku burburiyeen Ukraine dagaalka si dadban ay ugu jiraan reer galbeedku dabcan marka la eego dhinaca saada ciidanka marka la eego hubsiinta dhinac walba taageero buuxda ay la garab taagan yihiin waana taata muujinaysa in kooxda NATO iyo reer galbeedku ay dagaalka ka qayb yihiin laakiin uu Ruushku u arka kaliya inuu la dagaalamayo Ukraine waa wareey Putin wuxuu moodayaa wali inuu la dagaalamayo Ukraine ayuu jabin kari laayahay waxaan ognahay in intaas oo cunaqabatayna dhaqaale la saaray Ruushka dhinac walba xag walba una ilaa hadda ku doodaya inay waxba aysan isaga ka tarin dabcan markuu dagaal dhaco wax walba ee ugu horeeya uu baabiyo waa dhinaca dhaqaalaha iyo in uu dhaqaalaha hoos u dhigo oo markaasi uu saameyn weyn ku yeesho laakiin Ruushku wali wuxuu ku doodayaa in ay iyagu ku lug leeyihiin ama ay sabab u yihiin sixir bararka iyo xaaladda qalafsan ee dunida ka taagan halka ay reer galbeedkuna ku eedeynayaan in uu Ruushku hor istaagay hadhuudhka iyo ganlida Ukraine laga dhoofin lahaa ee markaasi wadamada kale u baahan la geyn lahaa sida in ay qaaradda Afrika ay dhibano u tahay dagaalka halkaas ka socda dhanka kalena dalka Ukraine wuxuu aad u mahadiyay diyaaradaha loo yaqaan Bayraktar TB2 daroon aan cidina wadin sidoo kalena si dhaqsiya u sahamin karta meel walba waxay burburisay taangiyo farabadan oo Ruushku leeyahay oo ay dhulka la sintay aad iyo aad ay u mahadinayaan ciidamada Ukraine isticmaalka diyaaradda Bayraktar TB2 ee lagu farsameeyay gudaha waddanka Turkiga ilaa hadda waxay Ukraine lagu qiyaasaa in maalin walba ay 500 askar in ka badan kaga dhintaan dagaalka taas oo muujinaysa in uu dagaalku aad u xoogeysanayo gobolada bariga waddankaasi Ukraine ee lagu magacaabo Luhansk iyo Donbas goboladaas ayuu aad dagaalku uga socdaa waxaanad moodaa in ay horumar ka sameynayaan ciidamada Ruushku dagaalka marka la eego khariirada iyo goobaha cusub ay qabsanayaan laakiin Ruushka oo isku arka inuu yahay quwadda labaad ee adduunka ugu awoodda badan ayaa haddana in dalkaas uu ilaa iyo hadda uusan gobolada si caadi xataa gobolo khaasa aan la odhan karin uu qabsaday waxay muujinaysaa ku lug lahaanshaha reer galbeedka ee dagaalka Ukraine inay si buuxda qayb uga yihiin tababarka ciidanka UK waxay tababaraysaa ayaa la leeyahay 10,000 oo ciidana si ay qayb uga noqdaan dagaalka Ukraine oo Ukrainiana 10,000 oo Ukraine u dhalatay ay u tababaraysaa gudaha UK hub culus oo $100 milyan oo dollar ku kacaya ayay Ukraine la garab taagan yihiin xulafada ama groupka NATO waxay muujinaysaa in ay ugu tala galeen sidii ay u wiiqi lahaayeen oo ay ugu burburin lahaayeen dalka Ukraine quwadda Ruushka dabcan way iska cadahay wax walba hawada ama wadamada ku midoobay NATO hawadooda aad ay raadaradu ay ula socdaan xaalad walba
waxayna mar walba sameynayaan ilaalin dheeraad ah iyadoo ciidamo fara badanna ay gobolada ama gobolka Baltic lagu magacaabo ama wadamada bariga Yurub ay keeneen dalalka ka qaybta ah NATO ciidamo fara badan oo NATO ka socda. marka laga hadlayo arrimaha bini'aadantinimada dhinaca qaramada midoobay Ruushku wuxuu ku doodayaa in matalayaasha qaramada midoobay ay wadamada reer galbeedku adeegsanayaan oo ay dhabarka ka riixayaan weligeedna waa lagu yaqaanay inay adeegsadaan qaramada midoobay si ay u xalaashadaan waxay doonayaan inay qabtaan laakiin Ruushku wuxuu ku doodayaa in wax walba oo dhacaya oo ay qaramada midoobayna sameynayso ay reer galbeedku ku cadaadinayaan qaramada midoobay hay'adaheeda iyo cid walba matasha in uu Ruushku isagu gardarro ku soo weeraray dalka Ukraine.